waa maxay cadaaladda gudidda ama dhaqamada wax gudidda ma ahan wax cusub waxay ku jirtay dhaqamada adduunka oo dhan waa la xisaabtanka qofka waxyeelada geystay cagsiga qaabta qaybtaasi ayaa gebi ahaanba maqan marka aynu keliya diiradda saarno xabsiga waxaan aragnay dhibanayaal badan iyo qoysaska dhibanayaal bixinaya hadallo ku aadan saamaynta dhibanaha waxay qabaan su'aalo badan sabab maxaad sidaan u samaysay ma garwaaqsatay saamaynta ay ugu yeelatay oo uusan weli ka jawaabin nidaamka soo jireenka ah sababtoo ah eedaysanayaasha looma ogola inay ka hadlaan waxyaabaha noocan ah marka xukunka lagu ridayo ama kadib marka la xiro ama xabsiga la dhigo qofna ma weydiinayo inay garwaaqsadaan waxyeelada ay geysteen mararka qaarkood waxay dhahaan waxaan doorbidayaa inaan xabsiga galo xabsiga ii dira xabsi idhiga ma awoodo inaan fariisto miis oo aan dhagaysto saamaynta wax aan sababay aad bay u adag tahay balse haddii dadku ay u samayn karaan si guul leh waxay keenaysaa dad faro ku tiris ah inay ku soo noqdaan nidaamka waxayna dadka ay waxyeeladu gaartay u horseedaysaa dariiq aad ugu wanaagsan xagga bogsashada